salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaanba qodobadaad wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid xogaga Tigrayga ee TPLF ayaa xabsiga u dhaadhiciyay wariyaal aad u tiro badan oo ka howlgali jiray waqooyiga dalka Itoobiya. xogaga Tigrayga ayaa gobolka Tigrayga ka wada howlgalla aad u ballaaran oo wariyaasha ajnabiga iyo wariyaal aad u tiro badan oo la sheegay inay la shaqayn jireen warbaahinta gobolka Tigrayga xabsiga loo dhaadhiciyay, iyadoo wariyaashaasi lagu eedeeyay inay u shaqayn jireen dowladda Itoobiya ama sirta xogaga TPLF ay la wadaagi jireen waxa loogu yeedhay cadowga gobolka Tigrayga. xogaga Tigrayga ayaa bilaabay duulaan ka dhan ah dowladda federaalka Itoobiya iyagoo ciidamadooda u sii daabulaya xuduudda dheer ay la wadaagaan gobolka Axmaarada, iyagoo sidoo kale sheegay inay gobolka Walkeed gebi ahaanba ka xoreyn doonaan maleeshiyaadka Axmaarada iyo ciidanka federaalka Itoobiya. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dini Mufti ayaa sheegay inay xogaga Tigraygu duulaan aad u culus ay soo qaadeen, isagoo ugu baaqay beesha caalamka inay si weyn u cambaarayso duulaanka mar kale ay Tigraygu diyaarinayaan ay qorsheynayaan inay dowladda dhexe ee Itoobiya ay weerar xooggan ku soo qaadaan. Dini Mufti ayaa sheegay inay xogaga Tigrayga ay ka gaabiyeen inay colaadda gobolka Tigrayga gebi ahaanba la soo afjaro ama dowladda dhexe ee Itoobiya ay wada hadal la galaan midho dhal ah, isagoo sheegay Tigrayga inuu waxba ka socon layahay. sidoo kale wuxuu sheegay raashinkii bini'aadantinimada inuu si xawli ah gobolka Tigrayga ugu socdo oo sidii loo qorsheeyay laga badbadiyay, uuna sheegay amni la'aan inuu ka keeni doono xuduudaha gobolka Axmaarada iyo deegaanka Tigrayga, iyadoo xogaga Tigrayga ay dowladda dhexe ku eedeysay in ay wadaan colaad hor leh oo dalka Itoobiya la geliyo, iyadoo dalka Itoobiya uu la daalaa-dhacaya dhaqaale la'aan iyo amni la'aan aad u xooggan oo gobollada dalkoo dhan amnigooda u faraha ka sii baxayo. gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo aad u ballaaran oo qoomiyadda Oromada guud ahaan la iskugu keenaya mucaarad iyo muxaafidba. qoomiyadda Oromada ayaa khilaaf aad u weyn soo kala dhexgalay oo dhanka calanka. dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay xisbiyada talada haya ee gobolka Oromada inay calanka isticmaalayaan jamhadda Ola ay leedahay, iyadoo Ola arrintaas ay bayaan weyn ka soo saartay ayna sheegtay calanka Oromiya inuu Oromadoo dhan u dhexeeyo, shakhsi kasta oo Oromo ah oo qaangaadhan looga baahan yahay inuu calankaasi difaaco. xisbiyada OLF iyo OFC ayaa dhowaan khilaaf weyn uu ka dhex dhaliyay, iyagoo gebi ahaanba arrintaasi loo xil saaray baa la yidhi odayaasha gobolka Oromada si ay xal waara uga gaadhaan calankana loo aqoonsado inuu calanka keliya ee qoomiyadda Oromada yahay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ololihiisii ugu dambeysay wada uu ku dhawaaqaya ama uu ku shaacinayo wasiirkiisa koowaad ee dalka waa ra'iisul wasaaraha dalka. xafiiska madaxweynaha ayaa si weyn looga dareemaya ololaha siyaasiyiinta u hanqaltaagaya in ay noqdaan ra'iisul wasaaraha dalka ama ay kasoo hormuuqdaanba ama ay kasoo dhex muuqdaan dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkana ku eegaynaa. taariikhdu waxay ku beegan tahay 10-ka bisha 6aad 2022. haddaynu u guda galno wararkeeni oo faahfaahsan, xogaga Tigrayga ayaa xabsiga u dhaadhiciyay wariyaal aad u tiro badan oo ka howlgali jiray gobolka Tigrayga. TPLF ayaa sheegtay wariyaashan inay u shaqayn jireen waxa ay ugu yeedheen cadowga gobolka Tigrayga oo ah dowladda federaalka Itoobiya. sirta gobolkana ay si weyn ula wadaagi jireen xogaga ay dagaalka weyn kula jiraan ee militariga dalka Itoobiya ama xukuumadda Dr. Abiy Ahmed, ayagoo ku sheegay wariyaashaasi inay yihiin khayaamiin qaran. dalka gobolka Tigraygana gebi ahaanba inay khayaanaan sharcigana lala tiigsan doono, waxa xukunkooda u mutana la marin doono. gobolka Tigrayga oo muddo dheer dagaal khadar kula jira dowladda federaalka Itoobiya, haddana uu weli abaabul ka socdo gobolka Tigrayga ay xogaga Tigraygu ay sheegeen inay weerar ku qaadi doonaan gobolka Walkeed ee u dhexeeya Tigrayga iyo Axmaarada ama deegaanada la isku haysto ee qoomiyadda Axmaaraduna ay sheeganayso. Tigrayguna ay dhulkaasi sheegeen inayna marnana wada hadal ka galinin, dagaalo khadhaadhna ay kula geli doonaan ayaa la sheegay ciidanka Tigraygu inay halkaasi duulaan weyn ku sii yihiin. Tigrayga ayaa xabsiga u dhaadhiciyay baa la yidhi wariyaal aad u tiro badan oo muddo dheer la soo shaqaynayay xogaga Tigrayga ama ka shaqaynaya gobolka Tigrayga, iyadoo xogaga Tigraygu howlgallo aad u ballaaran ay ka wadaan gobolka Tigrayga. cid kasta oo ajnabi ah ama ka shaqaysanaysa gobolka Tigrayga la sheegay in lala xisaabtami doono, hadda laga bilaabana Tigraygu ay sharciga gacantooda ku qaadan doonaan. afhayeenka dowladda federaalka Itoobiya ama afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dini Mufti ayaa sheegay xogaga Tigrayga inay duulaan aad u ballaaran diyaarinayaan
oo dagaal qaran ay kula galayaan dowladda dhexe federaalka Itoobiya isagoo sheegay beesha caalamka inuu u sheegayo inay cambaareeyaan duulaanka ay wadaan xoogga Tigrayga ee ka dhanka dowladda dhexe Itoobiya haddana loo baahnayn inay dagaalo qaran dalka Itoobiya ay mar kale ku dhexmaraan xoogga Tigrayga iyo dowladda federaalka Itoobiya Diini Mufti ayaa beesha caalamka ugu baaqay in ay cambaareeyaan colaadda ay Tigraygu diyaarinayaan mar kale isagoo sheegay dalweynaha Itoobiya inay gaajo iyo macaluul iyo dhaqaale la'aan iyo amni darro aad u weyn ay ka jirto Tigrayguna loo baahan yahay inay sii xoojiyaan wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka Itoobiya sida looga midho dhalin lahaa colaadan weyne ka tahan gudaha dalka Itoobiya ama gebi ahaanba loo soo afjaro Diini Mufti ayaa sheegay Tigraygu inay ku jiraan abaabulkii ugu dambeeyay isagoo ugu baaqay dalweynaha Itoobiya inay la socdaan dhaqdhaqaaqyada xoogga Tigrayga iyo weerarka qaawan ay diyaarinayaan sidoo kale Diini Mufti waxa uu sheegay inay beesha caalamka ay la wada socoto gargaarkii bini'aadantinimada ee gobolka Tigrayga loogu talagalay inuu sidii loo baahnaa si aan ahayn ay xoogagga Tigraygu u bedeleen gaargeeyaan oo ka mamnuuca ama aan ahayn raashinkii gargaarka gobolka Tigrayga inuu halkaasi si xawli ah u galayo cillad kasta oo ka timaadana inay xoogga Tigraygu dusha saaranayaan sidoo kale Diini Mufti waxa uu sheegay inay xoogagga Tigrayga ka socon leeyahay nabadda laga gaadhayo colaadda dalka Itoobiya isagoo sheegay inay Tigraygu ku guul daraysteen gebi ahaanba inay waqooyiga dalka Itoobiya colaadda muddada dheer ka tahan gebi ahaanba la soo afjaro dhankoodana wax uu ka socon leeyahay fashil kasta oo ku yimaada nabadda dalka Itoobiya ay Tigraygu hormuud u yihiin buu sheegay dowladda Itoobiya inay la socoto dhaqdhaqaaqa xoogagga TPLF gobolka Oromiya waxaa ka tagay khilaaf aad u weyn oo u dhexeeya mucaaradka gobolka Oromada iyagoo xoogagga Oromada ee siyaasiyiinta ugu tunka weyn ay gebi ahaanba isku khilaafeen bali calanka ay adeegsatay jaamacadda oola iyadoo xisbiyada OLF OFC iyo xisbiya aad u tiro badan iyo aqoon-yahanku gebi ahaanba ay dowladda federaalka Itoobiya ku cadaadinayso inuu calankaas iyo calan jamhadeed aynana qaadan karin xisbiyada sida horta uga dhaqdhaqaaqa gobolka Oromiya hase yeeshee jaamacadda oola ee aadka u hubaysan ayaa ugu baaqday bal qowmiyadda Oromada gebi ahaanba inay calanka tixgeliyaan calankuna uu yahay calanka Oromada cid kasta oo Oromana looga baahan yahay inuu calankiisa difaaco khudbaadkan ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa abaabulkii ugu dambeeyay wada oo ku magacaabayo ama uu ku shaacinayo wasiirkiisa koowaad ee dalka Soomaaliya waa ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha ayaa laga dareemaya culayska miisaanka uu leeyahay tartamayaasha wada hanqal taagaya in ay noqdaan wasiirka koowaad ee dalka ama dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ka soo dhex muuqdaan tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu